Assalaamu calaykum wacano wanaagsan saaxiibayaal halkan waa channelkayga Mahad Nuure Vlogs waxaa alaaba idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyinkan xiisan gelinayo maanta waxaan mowduucana ku dul istaagi doonaa dhibaatooyinka shaqo la'aanta ka jirta dunida qaar ka mid ah shaqooyinka ugu la yaabka badan ee dadka ay nolol maalmoodkooda qaarkood ay ku maareeyaan aan kugu dara daawadow shaqooyinkan ugu la yaabka badan dunida haddii aad xariif ku tahay ka shaqooyinkooda ogow mushaar kuwa shaqooyinka caadiga ah qabtaan ka badan ayaad qaadan doontaa haddii aynu gudagalno xilli ay soo kordhayso dhibaatooyinka shaqo la'aanta ka jirta caalamka haddana dadka qaar waxay ku fakaraan sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo qaar ka mid ah shaqooyinka ugu la yaabka badan dunida waxaa ka mid ah kuwa dadka qaar ay ka helaan nolol maalmoodkooda waxaa jira dad badan oo shaqooyinka qaar quursada ama ka faana kaasi maxaan ku tilmaami karnaa haddii aynu kugu bilowno ma samayn lahayd sheekooyinka noocan ah nasxaysa yihiin sheekooyinka ugu la yaabka badan ee laga diiwaangeliyo shaqooyinka la qabto haddaba daawade 5 ka mid ah shaqooyinka ugu la yaabka badan dunida ayaan idinkula wadaagi doonaa muuqan lambarka koobaad waa in qofka kilkishiisa aad urido si aad u ogaato tayada barafuunka u marsan shaqadan haddii aad xariif taqasus badan kula aadan ahayn oo khibrad 3 sano dhan ogow kama shaqay kartid haddii aad tahay qof ku fiican wax urinta ama kala garashada carafta barafuunada waxaad lagu hayaa fursad shaqo waxa laga rabaa inaad qofka kilkishiisa sanka saarto si aad u xaqiijiso tayada carafka barafuunka kilkishiisa ama noocyada kale uu marsaday haddii aad shaqadan qaadato waxaad tijaabinaysaa barafuuno kala duwan waxaana shirkadaha soo saaray iyo warshadaha siinaysa talooyin ku saabsan in wax laga bedelo tayadooda lambar 2 waa inaad kireysato wiil saaxiib jacayl ah taasi waa gabadha magaalada Tokyo dhexdeeda haddii aad joogto oo lacag haysato waxay kuu fududaanaysaa inaad hesho wiil kula sameeya saaxiibtinimo jacayl dad badan ayay la yaab ku tahay arrintan balse waa shaqo si xoogaysanayso lambarka 3 dadka qabiirada ku ah seexashada haddii aad tahay xariif hurdo badan ogow shaqo ayaad helaysaa waana nasiib badan tahay waa suurtagal inaad la yaab kula tahay inaad hurdo oo la helayo mushaar ka badan mid ka shaqeeyo waa sax dad badan ayaa lacag lagu siiyaa inay saaxdaan waxayna ku shaqaynayaan saynisyahano cilmi baaris ah oo ku haya dhibaatooyinka hurdo la'aanta waxaa la siinayaa daawooyin lagu hurdisiyo si loo tijaabiyo sidaas ayayna lacag ku helayaan tiro badan lambarka 4 nadiifinta mataga shaqadan ma qaba lahayd adigana daawanayo wadamo badan oo ka mid ah reer galbeedka tani waxay ka tahay shaqo si joogto ah loo qabto goobaha ay dadweynaha ku badan yihiin sida basaska tareenada ama meelaha kale ee lagu tukaamaysto qof walba shaqadaasi ma qabto balse waxaa la siiyaa dadka aqoonta u leh haddii aad diyaar u tahay shaqadan waxaad tagaysaa goobaha dadweynaha joogaan adiga oo sugaya inuu qof matago si aad durbadiiba u nadiifiso waxaa lagu soo dhaweynayaa markaa shaqadaasi doonatid laakiin su'aasha waxay tahay ma tahay qof samayn kara lambarka 5 kala garashada digaaga dhadiga iyo midka labta hawshani waa in la kala aqoonsado ama la kala saaro digaaga yaryar inay lab yihiin ama in ay dhadig yihiin dalka Ingiriiska shirkad ku taala ayaa sanadkii la soo dhaafay shaacisay inay yaraadeen dadka khibradaasi leh ee shaqadan soo raadsada iyadoo xitaa sanad walba qofkaasi la qaadanayo dakhli dhan 400 oo kun oo gani tani waxay ka dhigan tahay in shaqadaasi hadda laga heli karo wadanka UK waa haddii aad joogtid xirfadaasna aad taqasus badan ku leedahay 5taas mowduuc ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta ee shaqooyinka ee la yaabka badan ee dunida dadka qaar qabtaan fadlan daawade